bal daawadayaal makana aynu eegno warbixin ka duwan amuurihii hore aynu soo sheegnay wiil dhalinyaro ah oo ka shaqeeya amaba ka howlgala wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa waxa uu metelay socodkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi intii uu ku jiray safarkii 14 cisho ee ku mareeyay gobolada Soomaaliland. haddaba wiilkaasi amaba wiilka dhalinyarada ah ee reer Soomaaliland ee muwaadinka waxa laga joojiyay amaba laga mamnuucay inuu mushaharaad ka qaato wasaaradda warfaafinta oo uu kamid ahaa shaqaalahaasi. warbixintaasi aynu daawano. kani waa Cismaan Cabdilaahi Cilmi oo ku magac dheer heer sare dhawaan ayuu baraha bulshada ku xidhiidha ka soo muuqday isagoo matalaya socodka madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi. himilada dalkeena ayaa ka tubtisa haysta firkiyadooda himilada dalkeena ayaa ka tubtisa haysta firkiyad. Cismaan heer sare waxa uu kamid ahaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland. maamulka wasaaraddaasi waxay Cismaan ka joojiyeen qaadashada mushaharaadkii dawliga ahaa iyagoo ku eedeeyay inuu canjilay amaba matalay habka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u socdo. had iyo jeer dadka dunida ku noolay waa ay matalaan madaxda dalalkooda kuwaasi oo wax dambiye ku mutaysanin. Abdullaahi Farmaajo oo runtii madaxweynaha jamhuuriyadda yaaniga Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo kala shaqeynaayo xornimo. waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo Abwaan Maare oo runtii hawl badan iyo waqti badan geliyay boogan uga hadlayo milkiyadda dalka inay leeyihiin dhalinyaro. waxaan rabaa mar labaad inaan halkan idinkaga sheego in abwaanka waxa uu sheegay aad ka dhabayn kartaan ama ay suuro gelin karto ficilada idinku aad sameysaan. I now live in Washington DC due to work. maraan la xidhiidhay Cismaan heer sare waxa uu ii sheegay in arrintaasi jirto balse uu ka gaabsaday inuu warbaahinta ka soo muuqdo sabab la xidhiidha baqa uu ka qabo in la xidho amaba uu xabsi ku mutaysto matalida uu matalay socodka madaxweynihiisa. arrintani ayaan ku cusbayn Soomaaliland. hore waxa loo xidhay nin la magac ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo kaasi oo markii dambe madaxweyne Axmed Silaanyo la kulmay lagana raali geliyay xadhigaasi loo geystay. waa Axmed Ibraahim Maxamuud Axmed Saki Badda Cas TV Hargeysa.